وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا بسم الله اللهم صل على محمد والعليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانت وإن السلام يا دعاء نحن نقول بالأبي ما شاء الله إلهي بقى قوي إسكاله أودنا إسكاله ما ركتي أود أسقناتي اللهم صل على محمد ربنا وعليك توكلنا وعليك النبينا وعليك المصير لا إله إلا الله أنت سبحانك إن كنت من الظالمين ولا ليال دمانت وإن السلام يا أنت أفكي قرنس أنت كلنا وترجمون كرتا waxaan maanta inii wadaa ayaamahan waa iska habsaamay laakiin maanta waxaa inii wadaa wax aada u fiican oo aad ku faa'iidi doontaan oo caafimaada oo dadka cudurrada sida beerka dadka laga hayo oo qaba indha caseeyaha waxaa la dhaho ama cagaarshowga haba qof si u yaqaano ama hepatitis-ka waxaa la dhaho dadka cholesterol-ga haysta dadka haysta stomach heaved waxaa la dhaho oo calooshiisa always markuu wax cuno dareemo in calooshu buuxdo ama calool weyn haysta waxaan maanta ini barayaa ama xayr haysto calooshu weyn toofaad ah maanta oo cayilan waxaan barayaa maanta wax aad u fiican oo natural ah oo markasta waa cabnaa marmarka qaarkood waa cabnaa laakiin sidaa u cabnaa ay khaldan tahay haddii qofka uu hayo caloosha laga hayo bacteria calooshaada ku jirto parasite xataa haddaa haysatid waxaasoo dhan bay dawo ka tahay walaalayaal marka waxaan rabaa inaan inii sheego allahuma salli calaa maxamed qofka ilaahay subxaana watacaala dawada qofba maaragtay meel buu u saaraa meel buu maaragtay caafimaadka u saaraa waxaan rabaa marka walaalayaal inaan inii sheego maantayto ina tuso caafimaadka qofka bini-aadanka haddaadan horta adigu isla dadaalin dhakhtar kulama dadaalayo haddaadan adigu maaragtay naftaada lagu aftigaray dhakhtar kuma lagu aftigaraynayo ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankeena buu wax kasta noogu sheegay qofka bini-aadanka wa shifaa wa dawaa horta awalan qur-aankeena ah ma fahantin waxaa ku xiga waxyaalaha ilaahay kitaabka ku sheegay oo recomendiga oo dhirta baa dawo ah qofka sida loo isticmaalo hadduu yaqaano walaalayaal waxaan gadaal ugu soo noqonaynaa insha allah programkeena ah khatra foojar Somali Health Aid insha allah baan kusoo noqonaynaa walaalayaal maxaan dhihi jiray ilaahay subxaanahu watacaala culayskii juuxa naga dalqaada hawlo badan baa igu furnaa dad badan baa waxay ii soo qoreen komodo badan oo igu leeyahay khadray maxaa ku helay waa soo laba kacliyay waa ikan marka waxaan leeyahay walaalayaal ilaah khayr hayna siiyo waxaan maanta inii barayaa wax aad u fiican ood ku faa'iidi doontaan halkan waxaa iigu shiidan dhir aan ini tusi doono halkaa iigu shiidan alaabta halka iigu shiidan baa kow ini tusayaa halkan waxaa iigu shiidan liin dhanaantii oo qolofteeda qabto oo aan jarjartay geedkan nacnac baa tira sheex nacnac baa tirahdaan afka qalaadna mintiga lagu dhaho xabad toon intaasaad haddaad baaraseed qabtid ku darsanaysaa ama caloosha bacteria hal xaboo toonaa ku darsanaysaa haddii toonta ku dartana waa iska dayn kartaa halkaan markaan ku shiiday walaalayaal subaxi waagu markuu baryo aad quraacda cuntid oo qofka quraacda ama cunto a cuntid baad waxaad isku shiidanaysaa intaan waa mintiga oo halkaas caba liindhanaantaas qolofta qabta oo xabad iyo bar hal xaba iyo bar baad isku shiidanaysaa xabadaa toonta ah intaa markaa isku shiidatid calooshaada oo aan empty ahayn aad wax cuntay ama kafee cab ama timir cab whatever ama wax cun baad intaa cabisaa waxaad ku darsanaysaa dhanaanka badan hadduu ku dhibayo oo gaas aad leedahay waxaad ku darsanaysaa gaaska daway ka tahay runtii waxaad ku darsanaysaa qaado yaroo malaba diabetic haddaad tahay oo sokor qabtidna oo aada malabka u dhawaan kara way kala digriita walaalayaal xabadaa liintaa bas haafkaa ka tegaysaa baad ku shiidanaysaa iyo toonta iyo mintiga maarshaha nacnaca isku shiidanaysaan walaalayaal waa cabisaan markaad cabtaan subaxii maalintii oo dhan waxaa adinka cunayseen normalka cunaysaan habeenkii markaad seexanaysid haafka liinta haafkeedaad goynaysaa mintigii baad soo qaadaysaa xabadii toontaa soo qaadaysaa
qaada malabaad ku daraysaa waad cabaysaa intaa isku shiidatid waxaad ka faa'iidi doontaa inaada calool xayr la yeelan oo faad qofku yeelan waxaad ka faa'iidi doontaa dadka calooshu ay markasta dareemaan inuu buuxo in calooshaadu dhaa jisimkaagu uu calooshaadu empty noqonayso waxaad ka faa'iidi doontaa dadka cholesterol qaba subaga inuu jirkaaga ka nadiifoobo waxaad ka faa'iidaysaa beerkaaga haddaad indhacaseeye haysatay ama cagaarshow ama hepatitis qaada malabaad ku daraysaa beerkaaga intaas markaad 6 wiig wadid oo intaas 6 wiig wadid oo liinta waa liintaas ma ahan midda yalowga iyo maxaa la dhahaa intaas oo maxaa la dhihi jiray shaah nacnac ama lipton maxaa la dhahaa ka u taqaanaa minti waad soo qaadanaysaa fresh iyo xabada toonta 6 wiig markaa wada dhakhtarka u tagay soo test garee beerkaagu insha Allah wuu kalin garoomaya also waxay adkaynaysaa oo strong ka dhigaysaa oo awood siinaysaa shaqadeeda wanaagsan kaliyaha kili stonka waxa la kaliyaha xinjiray leeyihiin la shaqay xinjiraas waxay siinaysaa awood bay siinaysaa waxay kaloo suubinaysaa skinkaaga qurxinaysaa waxay kaloo suubinaysaa bakteeriyooyinka sida hargabka oo kale infekshinada dhuunta ku dhaca maxaa la dhahaa parasite-ka caloosha bakteeriya waxaas oo dhan bay ka ilaalinaysaa jirkaagu isbedelayaa qof kasta wuxuu leeyahay waa dhalaalaysaa maxaa cuntay maxaa shayna garayso ku leeyahay walaalayaal marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naftaanu waa mishinka haddaan markasta la dhaqin oo la nadiifiyo sida gaariga petroolka looga daadiyo ma nadiifsanayo dhakhtarku markaas wax taagan uu ku caawin karaa laakiin cudur aloonga la deganaanaysa waxaa lagu siinaya dawo kaalmatiya oo iyada laftigeedu infecti badan leedahay dhakhtarka waa la baneeyay inaa u tagtiisa soo fiiriso cudurkaa qabtay laakiin waxa ayna leeyahay intayba dhakhtar gaarin walaalayaal macaanayaal isla dadaala waxyaalaha beerka keena sideeda program dhan baa u suubin doonaa beerka qofka markii neutral ahaan loo fiiriyo subaga baa dhibsada waxyaalaha saliid iyo subaga leh wasaqda marka hadduu qofku laasinto liintan iyo mintigaas cagaarka iyo xataa wuxuu ku darsan karaa kaabashka caleentiisa qaybta dambaa kusoo dari karaa liifka kaabashku ku darsan karaa ku shiidan karaa wallaahi caad had noqon qurux badan dhex yar baad yeelanaysaa skinkaagu isbedelayaa ahmiyadaada nafsadaada isbedelaysa marka walaalayaal waxaan leeyahay alaabtaas waa alaabtaas isku shiiday waa mintigaas oo sacaba waa liindhanaantaas oo xabada waa xabadaas toonta waa qofka parasite-ka calooshiisa bakteeriyada ku jirta ama parasite bahalka la dhaho caloosha bahalkaga jira isku shiidanaya waxaan inii sheegayaa runtii alaabtan markaad 6 wiig isticmaashid balse qofaa laga yaabaa marka hore calooshiisa inuu gastric waxa la dhaho ama heartburn waxa u taqaanaan inuu haystay uu dhibsado laakiin ha dhibsan marab ku darso insha Allah wax badan baa ka faa'iideysa calooshaada waxba iska bedeli doona waxaan kaloo inii sheegayaa liindhanaantu waxay nadiifisaa jirka qurxisaa dhiigga bakteeriya kala dagaashaa waxay kaloo suubisaa kaliyaha xinjiraha bay maaragtay xoog u yeesho xinjirta kaliyaha shaqada bay xoog u yeeshaa waxay kaloo suubisaa qofka bini'aadanka skinka waxa jira bakteeriya ku dhacda way kala dagaalantaa iyo dhiiggeena labadaba fayrasyada sida hargabka oo kale allergic waxaas oo kale jirka ka baxayaan waxaa ku darsan kartaa oo kale oo ku waxaysan kartaa programka qaybta dambe insha Allah ku soo dari doono sanjibiil xataa ku dari kartaa laakiin this is the recommended saxa oo qofka uu isticmaali karo hadaa la ildaran tahay problem caloosha ah kiliyahaaga shaqadoodu yar tahay beerkaaga xayr leeyahay ama hepatitis yaa qabtid noocu yahayba indhacaseeye ama cagarshow haysatid walaalayaal isku ogaada alaabtan ma aragteen qofku bini'aadanka wuxuuna waayay cilmi anigu waan bartay runta maxaa la dhahaa waxyaalaha natural medicine-ka waa bartay London Medical College Metabolic College baa ka qaatay shahaadadeyda laakiin be honest with you qofka bini'aadanka naftiisa haduuna asagu isla dadaalin oo asagu ma aragtay ii sheeg isla magaciisiin oo asagu naftaada aad ka shaqeynay walaalayaal qofka wax kasto la isticmaali cilmiga u baahan yihiin garaanba u baahan yihiin waxa dawo markaa u isticmaalaysa you have to know dawadaas inuu qofku ogaado intay gaarsiisanta maxay damage ku geerisa maxay cudur ku geerisa walaalayaal marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada waa khadra Future Somali Healthy waa mudaawaadkeeni iyo cuntooyinkeeni healthiga inoo bilaabanay maadaama samar lagu jiro gabdhaha waxaan leeyahay baay iyo maxaa la jabay iyo bow iyo abo iyo abay ina adeer yaa walaal ina isku xisiso ma rabtid intaas af Soomaaliya ku hadasha
haddaa rabti inaad isqurxisid noloshaada hore u socoto stressna kumaba soo galaya alaabta inta isticmaalaysid. marka waxaa inii sheegaya walaalayaalow youtube-kayga soomaali magaca soomaali u taagan yahay waa Somali Healthy Eat Khadra Furniture. Somali Healthy Eat Khadra Furniture magaca soomaali buu u taagan yahay. laagtii sheer ku dhufta alaabtan qof kastoo cadiban oo intaas aan sheegay la cadiban gaarsiiya haddaa rabti inaad sii noolaatid. waxayna leeyahay walaalayaal programka soo inoogu bilaabday insha allah galab kasta oo sabtiya waxaan soo gelin doonaa one video. waxaan bari doonaa gabdhaha how maaragtay calooshaan ay uga shaqeeyaan. waxaan bari doonaa adigaan fitness lacag ku bixin, adigaa maaragtay ii sheeg aada meel kala tegin, inaad iscaawisid, naftaada caawisid, caafimaadkaaga caawisid, awlaadaada caawisid. waxyaalaha ugu badan dadka intaan caloosha markii qofka intaa laga hayo bad habit ka haysto maskaxda buuqaga furan yahay. always waa qof xanaaqsan, waa qof buuqsan, waa qof maaragtay si kala ah, ma fahantid. anigu beenini ma sheegayo, waxaana anigu tijaabina dadka uma soo bandhigo. waxyaalahan recommending waa waxaan barto professional u ahay. marka waxaan leeyahay walaalayaal macaanayaal soo dhawaada isku soo ducayno ilaahay subxaanahu wa tacaala khaatimada maaragtay inagu aadiyo wixii shar lahayd naga xijaabo. waxyaalo badan baa soo socda insha allah. waxaa soo socda wax neutral oo la isku qurxin doono, wax neutral oo la cuni doono. waxyaalahaas ay noo socon doono. cuntooyinkeena wadankeena laga helo haddaa wadanka joogtid iyo wadamada aan joogno. horeyna waa u duubay, haddana noocyo ka bedelan baa soo wadaa. programkan baa inoo socon doona insha allah ilaahay hadduu xugmo. marka waxaan leeyahay hayla yaabinino hawlo badan baa ku jiray, tareerimo iyo shaqo iyo hooyana waa ilmana waa leeyahay. shaqadayda kaliya hawshaan ma hawlo badan baa qabtaa. marka waxaan leeyahay Soomaali weyn noolaada, cadowgiina ha jabo, midnimo iyo israac iyo isku ducayn allah maaragtay nagu asbaabo insha allah. waxaan leeyahay sheerka iyo like-ta walaalkaa kaloo cadiban gaarsii aan isku soo ducayn. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.